رئيسل wasaaraha dalka Israa'iil Mr Benjamin Netanyahu booqashadiisii uu ku marayay qaaradda Afrika ku soo gabagabeeyay dalka Itoobiya. Ra'yisul wasaare Benjamin Netanyahu oo booqasho ku jooga dalka Itoobiya kulan la yeeshay ra'yisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn taas oo lagaga wada hadlayo xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya labada wadan. Waxa kaloo lagaga wada hadlayaa xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya labada wadan iyo la dagaalanka argagixisada. Ambassadorka dalka Israa'iil u fadhiya Itoobiya Mr Benjamin Netanyahu oo la hadlay wakaaladda wararka ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in ra'yisul wasaare Netanyahu ay gacan ka siin doono dalka Itoobiya sidii uu caawin lahaa dhinacyada tiknoolajiyadda iyo sayniska iyo beeraha. waxaanu safiirku intaasi ku daray in booqashada ra'yisul wasaaraha ay wehelinayaan ilaa 60 ka mid ah kambaniyada waaweyn ee wax soo saarka dalkaasi kuwaas oo indhaynaya sida ay maalgashi iyo suuq cusub ugu yeelan lahaayeen dalka Itoobiya taas oo kor u qaadi doonta ayuu yiri xiriirka labada dal isla markaana ay qalinka ku duugi doonaan heshiisyo iskaashi oo ku saabsan dhinacyada ganacsiga iyo maalgashiga. Ra'yisul wasaare Netanyahu waxa uu booqday madxafka dalka Itoobiya. Ra'yisul wasaare Netanyahu ayaa booqashadiisani uu ku marayo gobolka Geeska waxa uu ku tagay wadamo ay ka mid yihiin Uganda, Kenya, Rwanda iyo wadanka Itoobiya. waana booqashadii koowaad inta loo yahay ra'yisul wasaare Israa'iil ka socda oo ku yimaado qaaradda Afrika. Khalid Cabdikariin Xaaji, shabakadda caalamiga Hiral News, Burco.